waxaan idinku yeernay maanta inaanu idinka waranno shaqaaqadii ka dhacday maanta meesha la yiraahdo buuhoodle ereyadeeda sida aad la socotaan ayaamahanba nimankan waxay wadeen afkana waxay ka wadeen jahawareers dadka ay jahawareerinayaan oo leeyihiin nabad iyo waxbaanu doonaynaa gacantana waxay ka wadeen dagaal iyo bililaqaysi iyo maxay ahayd toy ay dadka barakiciyaan sida aad ogsoontiin ilaa 3 casho hadda isku xigta waxa socday weerar aan kala gol ahayn oo inta badan ku dhacayay dadka reer guuraaga ah sababtoo ah biyihii bay ka fadhiisteen dadkaas biyihii bay u diideen oon bay ku dileen way rasaaseeyeen waxay ka qalqasheen xoolihii dadkii bay argagixiso ku rideen oo ka qaxiyeen dhulkii waxay ciidamadan maxay tahay buuhoodle ku sugan runtii waxba badi uma jawaabaan waxay subax walba ku garaacanaad moodaa inay u qoreen madaafiic bay ku soo tuuraan oo ku ridaan waxa intaasi markay dhacday saaka oo u dambeysay markii cidina loo jawaabi waayay waxay soo qaadeen weerar toos ah oo 3 aaga programkooduna wuxuu ahaa inay buuhoodle qabsadaan waxa la leeyahay ninka taliyaha iyo maamulkaasi waxayba ku ballan qaadeen oo ku dhaarteen in ay buuhoodle qabsadaan dadkaasna barakiciyaan runtii inta buuhoodle gudaheeda ku jirta horeyba dee u barakiciyeen inta tuulooyinka 3 aag bay weerar ka soo qaadeen saaka markay ahayd 5 barkii ilaa 6 meelahaas sool joogto baliyada la yiraaho meygaagle iyo wandalaal oo degaankii dadkii waa meel dulbiya la weeye baliyaa awal bay hore dadkii uga soo eriyeen halkaas bay weerar ku soo qaadeen dadkii ay eriyeen ee ahaa deegaanka waxay ula soo galeen ama rasaastii baa waxay soo gaadhay ciidamadan buuhoodle khaatumo halkaa dagaal baa ka bilaabmay dagaalka runtii kuma ay guuleysan sida caadada ahaan jirtay khasaare badan baa gaadhay dabcan khasaare labada docba wuu gaadhay way kala badan yihiin laakiin waxaan idiin sheegayaa inta hadda aan hubo 3 baabuur oo magaalada aan ku arkay oo dagaalkii dib u galay waa laga qabtay mid kalena waa la sheegayo ciidamo anigu aanan goosanaho aanan arag ayaa lagu hayaa baa la yidhi 4 nolol baa la sheegayay 3 waa hubaa laakiin kaasna waa la cadeynayay gubitaan waa jira dhowr baabuur oo laga gubay way jiraan 3-4 dirkaba waa lagu sheegayay khasaaruhu waa badan yahay kale dabcan waa early weeye oo ma aanu lama kala guran weli xagga yaga inta aan kolley hubo 4 dhimashada 4 baa la igu sheegay isma aan dul taagan anigu dhaawacuna waa ilaa 5 iyo 7 labadaba waa leeyahay intaas ayaa khasaaraha anigu inta aanu hadda ilaa hadda ognahay uu ka badnaan karaa waana ka yaraan karaa waa early weeye dagaalku in dooru soconay maxaabiis waa laga qabtay 3 baan arkay 2 meel baa lagu hayaa baa la yidhi kolley ilaa 5 baa la sheegayay dadkana qaar waxay u leeyihiin waa ka badan yahay meelo kale ayaa ciidamada qaar haya waxaanu amar ku siinay in la soo gudbiyo oo sidii aan loo xanaanan jiray loo xanaanayo bini'aadnimada ahayd kolley tirada sugan dib baan idinka siin doonaa wixii maxaabiisa iyo wixii dhimashada iyo dhaawac yahay iyaga khasaare badan baa gaadhay waa la caydhsaday dhulkii waa laga kiciyey waa sidii aan shalay idiin sheegay waa maamul aan fadhiyin oo aad moodo in xoogaa dhalinyaranimo ku jirto oo soo ordaya oo sii ordaya marka arrinkaasaa dhacday annagu weli nabadii baanu wadnaa iyadoo waxaana lagu samaynayo
waxaan leenahay weli hadda kama quusan wada hadal iyo nabad haddii ay iskartaan oo banneeyaan dhulkaas ilaa mana qabsan karaan ma lahaan karaan runtii maadaama maamulkan khaatumo hadda uu ka jiro carrigaas SSC sool sanaag iyo cayn xaaraan bay ka tahay inay sii fadhiyaan ammaano kugu raatay yadaabaad moodaa baa layidhi laascaanood bay muddo haysteen maamul runtii ka kiciya may lahayn deegaankaasi laakiin hadda maamul buu yeeshay waxaanu ballan qaadaynaa inaanay dib u sii haysan doonin intaas ayaa dhacday haddii ay ka kacayaan oo nabadgelyo kaga baxayaan waxaanu u raacanaynaa wixii hore waa lays cafiyi karaa waxaanu u raacanaynaa ma jiro laakiin waxaanu dadka ogeysiinaynaa gardarrada caddaanka iyadoo ay dalkii haystaan oo dadkii haystaan oo dhibaatada shacabka ku hayaan ayaa subax walba weerar waa buuhoodle qura inta hadda aanu uga taagnahay taasina annana haddii alla yadhi dib dambe dulqaadkii waa naga dhammaaday dalkayaga iyo dadkayaga waa daafacaynaa waana ka xoraynaynaa nimankaa gardarrada kusoo duulay aad iyo aad baad u mahadsantihin waa tahay madaxweyne gaadiidka noocyadiisa ma noo kala sheegi kartaa la qabtay aad aragtay gaadiidka noocyadiisa waxa weeye waa qori weyn oo laba dhuumoodla ah oo suul la yidhaaho waa mid cusub oo waxa laba lahaa dhowaan baa dee la soo iibiyo shacabkooda niman baayic mushtari ahoo iyaga baayic mushtari ahoo gardarradaa ku kaalmeeyaa ay soo gadeen waa cusub yahay baa la sheegayey waa la ogaan doonaa kuwa ay yihiin dabcan waa la heli doonaa dadkaa sheegi doona dadka ayaa sheegi doona labada kale waa laba qabaal iyaga qudhoodu waa baabuur lalahaa berdhowd bay kasoo degeen berbera baan filaya inay yihiin waa cusub yihiin iyadana waxaa keenay waa shilke iyo waa laba shilka laba dhuundhuuna baabuur kale kan kale ee aanan arag ee lay sheegayey saddexdaa waan arkaan kan lay sheegayey waa suug baa isna la yidhi laba dhuumoodla ah laba suug kale iyo laba baabuur oo qoryo saaran yihiin iyana waa la gubay baa la leeyahay waa la gubay laakiin maydkoodii way jiiteen baabuurtaas intaasaan gaadiidka aan hadda ka maqlay ama jirta intaan ogna dabcan sida ay awalba dee sheegan jireen dadka meesha waa la yaallaa oo ceelasha iyo bay ka eryaan maxaabiisi hadday jirto kollay dee ciidamadii halkan waa istiriyeen waa laga gacan sarreeyo dee maxaabiis waxaa laga qabtaa marka ciidan la jebiyo ama saydhka la jebiyaa maxaabiis laga qabtaa maxaabiistoodii waad sawiri kartaan oo dabcan waa la arkay oo baabuurta iyo waxaan u malaya haddii maxaabiisi jirto waa reer miyiga ay weligood urursan jireen kuwii bay urursadeen baan u malayaa deegaanka ahaa laakiin ma aan maqal wax ciidan ah oo ciidamadii halka kan ka howlgalay oo maqan ay qabteen leema sheeg